meydka garsoorihii maxkamadda ugu sareeyay ee dalka Maxamed Qadar Ibrahim ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Kaiokor ee magaalada Nairobi. Ibrahim ayaa lagu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay taariikhda sharciga Kenya isagoo noqday Soomaaligii ugu horeeyay ee loo aqoonsado ama ku biiraba qareennada Kenya 11 Janaayo 1983 taasi oo furo u noqotay ka qaybgalka ballaaran ee xirfadda sharciga. aaska ayaa waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin iyo shakhsiyaad caan ah oo ay ka mid yihiin garsoorihii hore ee dalka David Maraga ahna madaxii hore ee cadaaladda, xeeralyaha guud waa xeer ilaaliyihii guud ee dalka Justin Muturi iyo siyaasiyiin kale oo uu horkacayay Eugene Wamalwa. garsoorihii hore ee dalka David Maraga ayaa xusay in garsoore Maxamed Ibrahim oo ay isla soo shaqeeyeen uu ahaa nin toosan oo shaqadiisa u gudanayay daacadnimo, dadaal, isla markaana haba yaraatee aan aqbalin wax musuqmaasuq ah intii uu xilkaasi joogay. Somebody I worked with for a long time. While I was in private practice, we did cases with Ibrahim. Many times he was on the opposite side, and I did, and we came to the judiciary almost at the same time. He was recruited to the judiciary like 6 months before me, and I joined. And later on, when I was here, I joined him in the Supreme Court. He was one of those judges who was diligent in his work. As Mr. Kisi has said, and I can confirm and I can say that without any fear of contradiction, just Ibrahim was one man who never tolerated anything to do with corruption. He was a straight man, and he did his work very, very diligently. So we have lost one of the most brilliant minds in this country. Somebody who has served this country with dedication. You remember, even went to detention because he was defending those who were acting for the constitution.